magacaygu waxaa layidhaha cabdullaahi ibraahim caraaye marka ugu horreyso 3 qodob ayaan guubaabinaa qodobka koowaad dowladda soomaaliya madaxweynaheedii oo maaragtay emergency degdeg u tagay beledweyne kana waxayna ka tarjumaysaa mas'uuliyaddiisa marka horeba dowladda oo dhan uu hogaaminaa waxaan idin leeyahay hambalyo waana ku mahadsantihiin barnaamijkaas fatahaadda ood maaragtay aad ka jawaabteen waxaan meesha u imaanay mas'uuliyiinta aan nahay waxaa sheegay maxamed xaashi arrimaha aan ka hadlaynana waxaa ka mid ah fatahaadahana waxaa ka mid ah dhowr meelaa fatahaadi baardheere gaarisa jowhar beledweynaana ugu daran nin kasta oo soomaali ah oo meel kastuu jooga ama muslim ama hay-adaha adduunka wax saacida waxaan ka codsanaynaa ummaddaa soomaaliyeed oo meel kasta degan oo ay ka mid tahay gaariso ay ka mid tahay baardheere ay ka mid tahay jowhar gaar ahaan magaalada beledweyne dadkaas oo maaragtay guryahoodii ka tegey waxaan codsanaynaa inay maaragtay la saacido waxaa kale oo maaragtay ku darayaa in maaragtay madaxweynaha uhuru arrimaha uu ka hadlay maalintii shaqaalaha kowdamey iyo shalay oo asana ka hadlay asagoo marka ay wada hadlayaan madaxweyneyaal oo la joogay oo afrika ah arrimaha uu ka hadlayna aadaan ugu hambalina walaalkeen jiro arrintaasoo kale mar kalena waxaa ka hadlay ninka la yidhaha ducaale isagana waa u mahad celinaynaa shacabka kenya oo soomaaliya intana ku soo dhoweeyey haddana madaxweynaheedii uu hogaaminayo soomaaliya oo dhahayo ha laga ilaaliyo maxay aheeday dhibta lagu haayo waa ku mahadsanta ayaan leenahay uhuru assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ragga halkan fadhiya waxay ka kooban yihiin salaadiin soomaaliyeed sida ugaas malaaq suldaan iyo wixii la mid ah imaam iyo wixii la mid ah waxaana soo kiciyey 2 arrimood oo kala ah kow waxaan jecelnahay inaan ammaan u soo jeedinno walaalkayo madaxweyne uhuru kenyatta iyo dowladdiisa baarlamaanka iyo shacbiga kenya waxaa maanta noo caddaatay walaalahayo inay yihiin dhibaatada soomaaliya ka damqadeen ayna ka hadashay dowladda kenya dowladaha faragelinta ku haya ummadda soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed inay ka daayaan inay dowladda kenya ka hadashay madaxweynuhu ka hadlay annana waa ku ammaanaynaa walaalkayo uhuru kenyatta waa ku ammaanaynaa dowladdiisa waa ku ammaanaynaa waa soo dhowaynaynaa waa walaaltinimo muuqata oon qarsoonayn waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin mana ilaabi doonno ciidamada kenya waxay ku dhimanayaan iyagoo soomaaliya xoreynaya mahad baan u jeedinaynaa dowladda iyo shacbiga kenya waxaanan leenahay walaalayaal intaad noo gasheen ma ilaawi doono waana ku mahadsantihiin baaraka allah fiik aniga waxaa la yidhahda sheekh bashiir sheekh cilmi raggii igu horreeyeen hadda badanaa la qabaa alxamdulilaah mahad celinta iyo alxamdulilaahi madaxweynaha kenya iyo dowladdiisa iyo shacabka aad baan ugu mahad celinaynaa sababto ay tahay ilaa 30 sano ku dhow intaasoo qaxootiye hayaan haddana waana garab istaageen walaalaheen ma iloobi doono isagoo ninkii odagaa hore u sheegay waxay alxamdulilah siday noo garab galeen taas waa saas midda kale dowladda soomaaliya carabta waxa ka dhex jira dhexdhexaaday ka qaadatay aaday u fiicantahay arrintaas saasaan u taageersanahay dhexdhexaadka ay qaadatay inaysan alxamdulilah qola raacin waayo waxa weye muslim hadduu isqabsto ama heshiisii ama haddaadan heshiisii karin dhinaca ka joog marka alxamdulilah taasna dowladda soomaaliya ugu mahad celinaynaa biyo baxada oo soomaaliya qaarkeed ka dhacday waxaanu leenahay ururada caalamiga ah iyo dowladaha adduunka iyo qolada waxtaa kulayso dhammaan iyo soomaaliya wixii alxamdulilah wax siiyey intaba waxaan ugu baaqaynaa inay waxooda sadaqaystaan ay la baxaan dadkaas waxtaraan marka alxamdulilah ilaahaygi subxaanahu watacaala wax tari kara laakiin
waxay heli karaan inay ku sadaqeeyaan dadka bannaanka taagan kolley meeshay ka dhaceen waad la wada socotaan idaacadaha dhegaysanaysaan qolo walba gacantiinu ha gaarto dowladaha islaamka ururada caalamiga kulli tuutu waxaan ugu baaqaynaa inay gacan ka geystaan meeshaas dowladda soomaaliyana aaday u dadaashay waa tagtay lacag ayay dhiibtay haddana way garab taagan tahay ayadana waa u mahad celinaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan aad iyo aad ugu hambaleynaynaa walaalaha igu horreeyey ee hambalyada ay sii daayeen ee ah dowladda Kenya iyo shacabka iyo baarlamaanka dhammaantood guushii taariikhda leed ay ka gaareen Soomaaliya ciidankooda u direen haddana ay la garab taageen siyaasiyan in laga daayo faragelinta Soomaaliya taas waxaan la qabaa walaalahaygi hore arrintaas ka shaqeeyay waxaan kaloo aan rabaa inaan u sheego dadweynaha Soomaaliyeed meel kastay joogaan caalamka beelaha caalamka ku nool oo dhan maqshir maghrib meel walba oo caalamka laga joogo Afrika Australia Europe iyo America walaalayaalow isu gargaara ilaahay leeyahay anigana samada idinka gargaara meel kastoo aad joogtaan waxaan idinku guubaabinayaa inaad u gargaartaan walaalihiina biyo baxada ku dhacday ee daadadka iyo aanfada ku soo rogmadeen ee Soomaaliya koonfur bari galbeed waqooyi intaba barwaaqada ilaahay na siiyey ilaahay nimcadaas ha noo xajiyo dhibka yaray nagu haysana dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa inay u gurmadaan khaasatan beledweyne ayaa hadda dhibka ugu culus uu ka jira iyo Jowhar waxaan kaloo u mahad celinayaa dowladda Soomaaliya guushii ay ka gaartay inay lacag deeqa bixiso waftigeeda ninka ugu sareeya ay u dirto dowladda Soomaaliya beledweyne inkastoo la rabay inay Jowharna soo marto laakiin intaasaaba guulaba lacagta ay bixisay waxaana loogu sheegay 1 milyan iyo bar ilaahay idinkiis Nairobina lacag fiican ayaa ka imaan doonta iyadana hadda la wada hawsheeda ilaahay idinkiis gobolka Banaadirna 100,000 bixiyaa la yiri asagana waa uga mahad celinaynaa qof kastoo muxsina oo Soomaaliya oo ilaahay wax siiyay iyo dowlad kastoo caalamka ka jirta wax allaale waxay sadaqaysato oo dhiibto waa uga mahad celinaynaa anagoo ah uqaashta Soomaaliyeed ee ku nool Kenya muddo badan ku noolay ee isa soo xilqaamay ee maanta media raba inay dadka oo dhan warkaas u sheegaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu